bismillaahi araxmaani araxiim ku soo dhowaada kanaalkeennii warsada miidiya iyo barnaamijkeennii dhabka hadal oona alah ku soo qaadanno wararka gudaha Soomaaliya, geeska Afrika iyo guud ahaan caalamka. Fadlan haddii aad ku cusub tahay kanaalkeenna subscribe garee, haddaad nala joogtayna la wadaag asxaabtaada oo fura gambaleelka si aad ula socoto wararka cusub ee soo gelin doono. Qarixii weynaa ee galabta ka dhacay Hotel Afrique kilomitir 4 agagaarka airport-ka weyn ee Aadan Cadde International Airport ayaa gabi ahaanba la soo afjaray. Ciidanka gaarka u tababaran ee booliska Soomaaliya ayaana ku guuleystay inay gabi ahaanba soo afjaraan dagaalkii ka socday gudaha hotelka, waxaanay ku guuleysteen inay soo badbaadiyaan siyaasiyiintii iyo waxgaradkii ku shirahayay gudaha airport-kaasi, waxaanay soo yareeyeen khasaarihii ka dhici lahaa halkaasi, ayagoo soo saaray warbixin ay ku sheegayaan in khasaaruhu uu gaaray dhimasho 9 qofood ah iyo dhaawac intaasi ka sii badan. February 2020 galabtay abbaara 5 galabnimo 31 January 2021 ayay argagixisadu weerar ku soo qaadeen hotel lagu magacaabo Hotel Afrique oo ku yaalay Sona kilomitir 4 wadada aada garoonka caalamiga ah ee Aadan Cadde International Airport. hotelkaas oo ahaa goob dadka shacabka ay isugu yimaadaan ayay argagixisadu weerar ay ku soo bilaabeen gaari laga soo buuxsho walxaha qarxa kadibna ay u isticmaaleen nafti haligayaal ee ugu talagalay inay qarribaan naftooda iyo nafta dadka shacabka ah goobta ku sugnaa ayay ku bilaabeen. saasaa maanta dhacdadaasi ku dhacday hotelka. inta ilaa hadda la xaqiijiyey waxa weeye dhimasho ilaa 12 qof ah, dhimasho ilaa 9 qof ah iyo dhaawac ilaa 12 qof ah oo dhammaantood goobta wax ku wada gaareen. waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. intii ku dhimatana Allah u naxariisto, intii ku dhaawacantayna Ilaahay ha booga dhayo. inta dhimashada ah waxay isugu jiraan 4 argagixisadii ka mid ah kii gaariga kowda hore isugu qarxiyay iyo 3 kadib nadiifinta iyo afjarka howlgalkaas ay ciidanku ku soo afjareen iyo 5 qof oo ka mid ah dadkii shacabka ahaa oo hotelka ku agdhawaa. walow warbixinta aan helayno ay sheegayso in dhaawacyada ay la sii geeyay isbitaallada magaalada lagu dabiibayo, halkaasna ay tiradu ka noqonayso ilaa 12 dhaawaca iyo 9 qof inta ilaa hadda la xaqiijiyay. way jiri karaan in dhaawacyadu ay dhimashadu sii kororto oo dhaawac kale qof dhaawac ah ay wax ka gaaraan, laakiin ilaa hadda inta aan xaqiijinay waa intaas. waxaan ummadda gaarsiinaynaa inay sidaas wax uga dhaceen meesha. warbixinta ayna siinayna waa midda hordhaca ah. warbixinta oo dhammaystiran iyo wixii kale oo ku soo kordhana dib ayaan kala soo socodsiin doonaa. maadaama goobta oo mugdi ah korontadiina ay maqan tahay awgeed ma jiraan wax intaa ka baxsan oo gooni ah. Siyaasiyiinta hotelka ku jiray ee laga soo badbaadiyeyna waxaa ka mid ah Generaal Nuur Galaal, Generaal Indha Cadde, mas'uulkii iska lahaa Hotel Afrique iyo saraakiil badan oo ka tirsan dawladda, kuwa horay u soo shaqeeyay iyo kuwa haatan ku jira intaba. waxaana muddooyinkii dhowey uu hotelkaasi martigelinahayay shirar kala duwan oo ay ku qabsanahayeen musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimo ee dalka. hotelkan ayaana ahaa mid zaxmad badan oo ay ku caweeyaan bulshada inteeda kala duwan, wuxuuna ahaa mid aad u mashquul badan. waxaana idinla soo wadaagi doonaa warbixinnada ka soo kordha qaraxaasi iyo guud ahaanba dalka. fadlan ku xilow kanaalkeenna warsada miidiya